Halkani waa Bandhiga TV. Kusoo dhawaada qodobada ugu doorkaroon wararka Soomaalida. Siciid Dani oo banaanka keenay arrin uu qarsan waayay oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isaga dhex martay. Dood qabiil ku saleysan oo ka dhex qaraxday aqalka sare iyo maqaamka Muqdisho oo lagu soo hadal qaaday kulankii aqalka sare. Mucaaradka Somaliland oo sameystay ciidan hubeysan shaaciyena sababta ay u sameysteen ciidankaas. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa markii ugu horeysay si faahfaahsan uga hadlay magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kaasi oo dhawaan la horgeyn doono baarlamaanka Soomaaliya. Siciid Dani ayaa shaaca ka qaaday inaan wax wada tashi lagala sameyn magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub oo ka soo jeeda Jubbaland isagoona walaac ka muujiyay arrintaas. Dhanka kale waxa uu tilmaamay inuu cabasho ka muujinayo sida uu dhaqmay markii uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud magacaabayay ra'iisul wasaaraha isagoona hadalkan ka sheegay kulan uu la yeeshay xildhibaanada baarlamaanka maamulka Puntland. Madaxweynaha Puntland Siciid Dani ayaa sidoo kale ku faanay inuu kaalin weyn ku lahaa guusha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud doorashadii 15 May ka dhacday Muqdisho. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo maamulka Puntland horey ugu hambaliyay ra'iisul wasaaraha magacaaban kadib war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada maamulkaas. Inkastoo hadalka ka soo baxay Dani uu muujinayo inuu ku guuldareystay laba isku day oo midi ahaa in isaga loo magacaabo ra'iisul wasaaraha ama qof ka soo jeeda Puntland. Tani ayaa sidoo kale muujinayso in Siciid Cabdulaahi Dani uu dhawaan ku laabtay Puntland uu khasaare kala kulmay doorashadii Soomaaliya gaar ahaan dambiciisii ahaa hoggaanka filla Soomaaliya. Wuxuuna safarkiisa gunaanadka u ahaa dagaal qaatay muddo 2 sano ah. Dagaalkan oo ku raadinaya fooqa ugu sareeyay xukunka Soomaaliya ayaa ku soo dhamaaday inuu Siciid iska imaansado hoggaanka dowlad goboleedka Puntland. Senatarada golaha aqalka sare Soomaaliya ayaa kulankoodii waxay uga doodeen dhismaha guddiyada golaha. Xubnaha golahaas oo intooda badan ka hadlay kulanka ayaa ku kala qaybsamay 2 garab. Senatarada golaha aqalka sare Soomaaliya ayaa waxa ay dood ka yeesheen dhismaha guddiyada golaha iyadoo xubnaha golahaasi intooda badan ka hadlay mudasha u kala qaybsameen 2 garab. Senatarada qaar ayaa ku doodayay guddiyada loo qaybsado hanaan qabiil ah halka xubnaha qaarna ay ku doodayeen in qof kasta lagu qoro guddiga uu ka shaqeynayo howlaha uu xirfadda u leeyahay oo dhismaha guddiyada lagu saleeyo aqoona. Gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi oo shir guddoonka ahaa oo ka hadlay qaab dhismeedka guddiyada golaha ayaa sidoo kale soo hadal qaaday maqaamka caasimadda Muqdisho ay u leedahay golaha uu isagu hogaamiyo. Sidoo kale gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa sheegay in laga maarmaan ay tahay in labada aqal ee baarlamaanka ay caasimadda Muqdisho matalaad ku yeelato isagoo soo qaatay qodobka 9 ee dastuurka oo ka hadlaya maqaamka gobolka Banaadir. Cabdi Xaashi oo sharaxaad ka bixinaya qaab dhismeedka qorshayaasha ee guddiyada golaha aqalka sare ayaa sheegay in markii 54 xubnood ee golahaasi uu ka kooban yahay laga reebo 5 xubnood oo ka mid noqonaya guddiga dastuurka, 2 habdhoori iyo 3 guddoonka ah. 44 xubnood ee soo hartay loo kala saari doono 8 guddi. Kulanka ay soo xaadireen 40 senatar waxayna xubnaha qaar ku doodayeen in guddida aysan dooran ka mid noqoshadooda oo aan lagu darin karin halka dooda ugu adag ee salka ku haysay in aqoon lagu xulo guddiyada iyo in qabiil lagu soo xulo. Gudoomiyaha xisbi mucaaradka UCID ee Somaliland oo warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa shaaca ka qaaday in xukuumadda Muuse Biixi ay ku kaliftay in hogaamiyaasha mucaaradku inay sameystaan ciidamo hubeysan oo ilaaliya naftooda. Wuxuu sheegay in xukuumadda Muuse Biixi ay isku dayday inay kharijiso hoggaanka mucaaradka gaar ahaan gudoomiyaha xisbiga Wadani halka qaarkood ay xiran yihiin kadib markii ay ka qayb galeen mudaharaad looga soo horjeeda xukuumadda. Dhanka kale wuxuu bulshada reer Somaliland ugu baaqay inay meel uga soo wada jeestaan dhaqamada guraacan oo ay wadaan madaxweyne Muuse Biixi iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha Maxamed Kaahina. Ugu dambeyn wuxuu sheegay in guddiyadu ay isku xilqaamaan dhexdhexaadinta xiisada ka dhaxaysa xukuumadda uu albaabada ka xirtay madaxweyne Muuse Biixi. Ugu dambeyntii wuxuu sheegay Faysal Cali Waraabe guddiyadii isku xilqaamay dhexdhexaadinta xiisada kala dhaxaysa xukuumadda uu albaabada ka xirtay Muuse Biixi taasi oo ka sii darayso xiisada siyaasadeed ee hadda taagan.